kulan hawleedkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland isla markaana muddo 2 cisho socon doona ayaa ujeedadiisu ay salka ku haysay sidii loo sameyn lahaa qorshe lagu diiwaan gelinayo dhalashada carruurta Soomaaliland kaasoo lagaga hadlayo qorshayaasha sanadka cusub ee bilaamay ee 2015 shirkan oo lagu darsay sidii ay u socon lahaayeen qorshayaashaasi diiwaan gelinta carruurta oo hore looga waday qaar ka mid ah gobolada Soomaaliland ayaa ka qayb qaatayaasha looga baahan yahay sidii ay u soo saari lahaayeen qodobo miradhal ah oo lagu diiwaan geliyo carruurtaasi mudane Cabdi Samed Cumar Malagaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo si rasmi ah u furay tababarkaasi ayaa sharaxay ujeedadiisa saaka waxa halkan inooga bilaabmaya kulan hawleed aan ugu talagalay inuu 2 cisho socdo oo aan kaga hadlayno diiwaan gelinta guud ahaan gaar ahaan diiwaan gelinta carruurta martay plan waxaan jeedaa diiwaan gelinta dhalashada carruurta oo birth registration oo aan kaga hadlayno macnaha Google xaarka qorshaha 2014 inagoo ka duulayna markaa framework guud ee civil registration ka qorshaha hawleedka yeelanayso 2015 macnaha sanadkan migaan galay ee 2015 yaan qorshayno sidee bay nooga martay hawlgelinayna diiwaan gelinta dhalashada carruurta degmooyinka aynu imiga pilot ahaan ku sii wadnay ahaa Burco iyo Boorame iyo sidee bay noo gaarsiin karnaa degmooyinka kale macnaha degmooyin door ay ka socday way jirtay oo mashruuc horaan u tijaabinay oo ahaa Berbera iyo Gabiley haddana waxaan anagu kaashanaynaa UNICEF inaan ka bilownay maxay heeday Boorame iyo Burco deetana aan doonayna sanadkan aynu gaarsiino degmooyinka kale marka qaabkii loo gaarsiin lahaa inagoo ka duulayna waxaynu ka baranay intii mashruuca noo soo socday labadii degmo hore inuu halkan ka munaaqashayno inaynu sameeyno balaankii maartayaan ku hawlgal lahayn sanadkan 2015 ayaan ku hawleedkan ujeedadiisu yahay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkaasi iyo waliba macalinka bixinaya ayaa iyaguna ka hadlay muhiimadda uu leeyahay